لو كل حيلاتك اللي تاجين هاي لح دبيعشان بليون أو صوماليات أو وطن كله هي وجهة يجاج يبي يران يعبر درن سبب الحريرة عباره هوفكي وأن دوين كل صورة في سوينا كسنا نودين tirada barakaca dadku soo barakacay magaalada Muqdisho aad ay u badan yihiin waxaan inta badan lagu sheegay inay ahaayeen dad xoolo dhaqato ah saameyn isbeddelka cimilada dadkaas oo kaliya yani inay Muqdisho yimaadaan waxay climate finance intii la helay oo lacag fiican ah runtii wax lagu qaban karay ma gaarayso bulshadii u baahnay bulshadii dhibaataysnayd ma gaarayso sababtoo ah wadanka transparency ma jiro suuqu wuu sareeyaa waxaan rabnaa inaan macluumaad kubanaysiis lacagtan intee ku baxdaa haddii is dad gaareen waxaan aragnaa dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda deegaanka iyo hay'adaha kale ee arrimaha deegaanka isbeddelka cimilada qusaysa ee dawladda iyadoo shirar la qabanayo iyo warbixino iyadoo la soo saarayo sidee marka loo xaqiijin karaa dhaqaalahan ama deeqahan inay si toos ah u gaari karaan dadka koowaad ay saameysay isbeddelka cimilada dawladdii hore waxbay qabatay waxay la timid nidaam initiative oo bacad celin ah xalay keentay dhir beerta laakiin meeshan iyadoo lacag la heli kara ama la raadin kara xitaa ilaa hadda laba mar baa wasiirna booqdeen dhibaatadiina way taagan tahay haddii xitaa la soo helana reality waxay tahay inaan lacagtaas ay gaarin mushkilo weyn ah dawladda Soomaaliya waxa la sheegaa in dhaqaalo lagu siiyo waxaan isbeddelka cimilada dadku u saameynta ku yeeshay si gurmad loogu fidiyo ama wax loogu qabto saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada iyadoo dhaqaalahaas dawladdu ay qaadato haddana maxay waxaan u taagan yihiin horena anaga wasaaradda deegaankan maxay hatay uu banaanka u soo dhigno wax qabad ay sheegteen oo aanan jirin oo tusaale waxay dhaheen in 7 months aan 2 milyan oo geed ku abuurnay aan jirin meel aan ka soo weynay marka cabsiga ogaantaada isbeddelka cimilada iyo arrimaha deegaanka Soomaaliya marka la fiirinayo dadka ka shaqeeyay ma yihiin dadkii saxda ahaa ee la rabay arrinta inay ka shaqeeyaan baarlamaanka dadka hadla dhahaya sidma bariis laguma aamini karo sidma waxa ma qabato sidma ma yeesho ma geysa dadka oo front line ka jooga waxa uma geyso maalin kastana lacag bay qaadata questionska dadku ay taageen waxa arkaysa meelaha qaar yani in warbaahintii wasaaraddu qaar ay wadanayaan isla markaana ay ka shaqeynayaan isbeddelka cimilada ama dad loo gurmanayo sawir iyo waxa ay soo diraan kaliya warbixinta focuska saarayaan laakiin aysan focuska saareen sida waxaan ay ku baxayaan dadka la gaarsiinayo baaritaan qodob ku sameeyay ma muuqata baahintu waxay focuska saartaa diiradda u saaran tahay in kaliya siyaasi iyo siyaasad ka shaqeyso hadda maanta oo aan xaaladaas ku jirno isbeddel cimilada la xiriirta dadka ka hadlaya saxafiyiinta ka hadlaya waa aad ay u kooban yihiin saxafiyiinta yaqaana mawduuca aad ay u yaryihiin iyadoo adduunka iyo dad kale ay qabaan in Soomaaliya ka mid tahay wadamada ugu badan sida baan u saameysay isbeddelka cimilada haddana qofka Soomaaliga way adag tahay in laga dhaabiciyo isbeddelka cimilada waxa inay wax jira yihiin in la qabsan karo way adag tahay xiriirka ka dhaxeeya abaarta isbeddelka cimilada qofka Soomaaliga sidee loo sheegi karaa